raalli ahaada il fiican ayay noo mareysay wax yar ayaase lad farsamo naga soo gashay soo noqday wax yar ayay lad farsamo naga soo gashay insha Allah halkeena ma ka sii wadanaynaa sheekhu soo dhawow sheekh soo dhawow aad baan ku soo dhaweynayaa barnaamijka ciwaankiisa wada aragtaa waan filayaa waxaa looga hadlayaa xukuumadda xil iyo xidhiidhnimo ee uu horkaco xoog weyn xaabsada inay leeyihiin ee dulmiga iyo dumarcayga iyo dibindaabyada deegaanka ka wada fiidiyowga hore ayaan wax badan kaga soo hadlay iyo iska soo fadhiga dadka soo dhawow mudane aad baan kuu soo dhaweynayaa walaal waxaan caawa ka hadlaynaa xukuumadda xil iyo xidhiidhnimo ama xil aan ku dhiibo misna kula xidido kaale xil aan ku dhiibe ila xidid kaale xil aan ku dhiibe ila xidid ilaa sida halgamaa cabdirashiid cali shucaa iyo rag badan oo ka mida dulmidiidba ay soo bandhigeen waxaa caddaatay inay ka jidho deegaanka boqortooyo yaroo la yidhaahdo xil iyo xidhiidhnimo xeelkii dawligana yaa xabsiga la dhigay sida dee hooyooyinka xabsiga iyo maaragtay dhalinyarada aqoon-yahanka loo dhigayo walaalayaal halkiina baan kasii wadanaynaa cabdow ma waxaad nagula diriirsan tahay nimankii reer tolkaay ahaa ee laga soo qabtay Garowe waxaani wax ka badane waxaad nagula diriirsan tahay ina faroore nimanku soo qabtay waa ina faroore dee waa reer Soomaaliya cabdow adigu ma waan awdaa reer Gaarisa mise waan awdaa nimankan Jubbaland jooga dadku waa xigtii xigaalo reer Puntland waanahay markii loo baahdo sida adiguba u tahay reer Northeast haddii loo baahdana yani muwaadin dhab ah oo reer DDS ayaan ahay dii aad profiledeeda dib u raacdid dambiyo badan baan daraaddaa u galay alla inaan ku aqoon lahayd ku aqaana fiicnaan lahayda waagan ku ammaani jiray ee aan la diriiri jiray dad badan oo dhibaatadaada iyo tacadiyadaada ka hadli jiray ee aan dhihi jiray ka leexda diric soo baxay weeye dayaxe waagaas waxaan leeyahay iga raalli ahaada shacabkan dambiga ka galo sababtay tahay dilaa baan ammaanay dilaa nin dumar kacaayaan ammaanay war maxay gabdhuhu galabsadeen madaxweyne deegaan baa tahay hogaamiye deegaan baa tahay maxay dumar ku kasbadeen ood ku caayi ma nin weyn oo siyaasiya oo dal dhan iyo deegaan xukuma baa wuxuu ka xanaaqaa ama u dagaalamaa wiil yaroo sida anigoo kale ah oo ka soo qeyliyey dal kale dacaayad baad u adkaysan leedahay nuurka DDSI mahadsanid walaale dacaayad baad u adkaysan leedahay dumarkii inta raggii dhaaftay baa dumarkii ku aflagaadeynaysaa ma dagaal baad u adkaysan kadhaa maanta haddaan qoriga deegta suranno baad u adkaysan kadhaa waabadna yani tani hadda waxay ka turjumaysaa saad u jilicsan tahay ama fulayga u tahay yani ninka fulayga ahi dagaalka markii la aado dib buu ugu noqdaa dumarka iyo maqasha iyo wuu dib ugu noqdaa inaad ducfi liita tahay cabdiyow inaad ducfi liita tahay cabdi ilayow maxaa hooyooyinka kuu geeyey maxaa dumarka kuu geeyey
dadka waa la iska dhiciyaa, waa la dagaalaa. hoggaan baa tahay, nin siyaasi aa tahay, mucaarad iyo muxafid baa yeelanaysaa. laakiin ma aha inaad hooyo 70 jira aad tahlayso qabto. ma aha dadkaad salay tiri kaalayo invest garaysta deegaanka inaad guryahoodii la wareegto. waa mooryaanimo. waa mooryaanimo. weli waa ku xurmaynayaa madaxweyne. xageed sharciyadaa ka keenta? dhaqan Soomaali uma leh. dumarka dagaal kasta oo dhaca umuladoox hadduu dhaco umuladoox ama la isku rogmado, dumarka lama laayo, salaadiinta lama laayo. xitaa dhaqanka Soomaalida waxaa ka mid ahay markii dagaal lagu jiro ammaanduulaha ciidankii ku leynayay ninka wata mar haddaad qabatid ee lama dili jirin. birmageeda la dhaha. war maxaa birmageeda kuu geeyey? raggaa la iska dhiciyaa. ragga ayaa la iska dhiciyaay. dumarku qabiil ma leh, qoysna ma leh. kaaga darana waxaa la yidhi qaabkaa idima soo qaban karo maxamuud nagurano walaalle. haddaan bring iraado khadka o dhan baa iga xumaanaya. war dadweynow jinay daawanaysow, maxaa hooyo wax lagu caayaa ma jidhaa? dumarku waa hooyada, waa walaasha. ya fiiri madaxweyne, waa tii ku dhashay walaasheed waxaad qabri bayax ka soo xiraysay. hooyadaa in adeerteed baad qabri bayax ka soo xidhay. way ku dhashay, way kula dhalatay, way kuu dhaxdaa. adiga ayaa dhalay. haw ka marka sidee waxa weeye ma jeceshahay maanta dhibta aad geysanaysid iyo dhibaatada iyo tacadiga in gabdhahaaga iyo wiilashaada laga jaro iyo walaalaha? sida jirku kuu danqanayo ayaa jirku noo danqanayaa. waa kuu sharaf darro tvgii deegaanka inaad hooyooyinka ka soo caydi. adigase waxaa kaasii daran kuwa aada hooyooyinkooda caayayso ama dumarkooda caayayso ee durbaanka kuu tumaya ee ku ag fadhiya. kuwa aada hooyooyinkood caayayso. Aidiid Cabdi soo dhawo brada, soo sheergare barnaamijka insha Allah. waxaa kaa daran oo damiir laawayaal ah oo doofar oo kale lagu misaali karaa. ilaan waxaa liye dunida waxaa ugu damiir laawaysan doofaarka. ninka aada hooyadii caayaysa ama gabadhiisa caayaysa ama adeerta caayaysa ee bahalkan la yiraahdo ku durbaantumi. aniga hooyaday ma soo caayi kadib, walaashayna ma soo caayi kadib, in adeertayna ma soo caayi kadib. taariikh baan u leeyahay. deegaankan ka soo joogo iyo dadkan ka soo jeedo waa dad dhaqan leh, waa dad damiir leh, waa dad aan qaadan dumarka in la caayo. wacalaykum asalaam maymuun muusa, aad baan kuusoo dhaweynayaa walaal. kusoo dhawow barnaamijka xukuumadda xil iyo xiditinimo ama xukuumadda xaabada ee dumarka cayda eeynayli. barnaamijkaan kaga hadlayno fadlan gaarsii dulmidiin dhammaan. anigu maanta waxaan u doodayaa, haddaan shalay u doodayay ama clibkii hadda iga go clibkan ka horreeyay aan kula hadlayay dadka deegaankayga, hadda waxaa damiirkaygu diidoon ka danqanayaa hooyooyinka iyo dumarka aada soo caayaysa. taasi waxay ku tusaysaa
inaan qabiil ama deegaan kaliya dareenkayga u kicin aan ahay qof xalaal ah ee damiir leh iyo dadnimo dulmigaagana diidaya iyo dadnimo xumadaada inaan ahay qof weli yani duntaada sii eegayo kuleh sidan wax ka bedel fifa dulmidid yes war xaggee Soomaali dhaqan ugu ahay in birimageedada iyo dumarka iyo maqasha lagu soo noqdo fulay baatay fulay inaad tahay taas cadeynaysa daayad baad u adkaysan waxa leeyahay nimaan weer sugin waran ma sugo madaxweyne weli anigu dadnima yani waxbaan sii fiirinayaa weli madaxweynaan ku leeyahay ma dadnima ya ma dadnima ma raganima ma hoggaanima ma siyaasi baad waxaad ku tahay inaad dumarka ku laalaabatin inaad hooyada xidhid ilaahu aan hooyada soo xiray habar yartaa weeye waxaad dadka aad xidhayso caayayso waa habareeraha waxaad ku bilowday gabar reedoollah rasuul daantaani wax kasta annaga aad ugu bilowdaa gobolka doolaad ku bilowdaa dilka bahalkan la yidhaahdo tacadiga barakicinta horumar la-aanta gobolka doolaad ka bilowda ayadana waxaad ka bilowda ina suldaantaani waxaan ogaabaad soo qoraysay waxaase idinka liitay dee adeerkeedii inta soo fadhiisay gabadhiisii oo saa loo caayay ninkii caayana jigjiga la joogo asagana soo caayoyey waa dayrina damiir laaw adaa dayroobay oo doqona ase xaaji soo dhawo walaal sii sheergaraya fadlan dhammaan dad damiir xumada dadka iga haysata ama deegaankan ka soo jeeday waa mahadsantihiin inta hadday daawanaysa laakiin hadda shacabka ii muuqda aad baad ugu yartihiin galbeedka doola diide dulmiga makaahiil waa shiray ameerku ku shiray waa mahadsan yihiin waaya bariga doolow war ninka caayay gabadhii habaryartiisa ahayd oo hooyadii ahaydii hadday qabiil iyo qoys noqotona waxa weeyaan ay isaga kaya dhow yihiin gabadhu caayo idinku waxaad xiirinaysaan maxay tahay markaasaa asxaan kuu samayn ina ilay imisuu dilay oo ladada ina ilay iyo sanyare iyo ninka la yidhaahdo ninkanaan bahalkan la yidhaahdo generaalka ciidamada kaba deginba bal adduunka xaggee lagu arkay 8 sano hal qofood hortaagan bahalkan la yidhahdo ciidanka sootiilo isku shaandhayn jiray xitaa intii markii guutaaba meel loo rari jiray waa ninka ku faana anigu walaalahay baan soo laayay aabahay baan soo diray janaanka ciidamada haysta magaciisa iga yar lunsan halkaana waxaan ku hayaa dhammaan xubnaha xididka iyo xigaalada la ah ilay iyo xukuumaddiisa korneel sanyare maahan kan ninkaan u socday sheekh mukhtaar bay dheheen sheekh mukhtaar shandare madare ka dhac waa midka haystaa wuxuu haystaa nabad sugudda sheekh mukhtaar waa in adeerkiis haa waa kan ninkaan rabay cabdiraxmaan buraale labagoole waa in adeerki waa hoggaanka nabadgelyeeda ahna generaalka haysta ciidamada liyu booliska weligeed kelilka kama dhicin ama deegaanka kama dhicin in madaxweynaha iyo hoggaanka nabadgelyadu ay isku jifa noqdaan maanta ka hor in madaxweynaha iyo taliyaha nabad suguddu isku reer noqdaan waxa yar aan idin sharaxo ciwaanka
barnaamijka idinna taxo inta dulmiga ku heshiisay ee qoys wadaagta ee xukuumaddan xil iyo xididtinimo waxaa ka mid ah Lubbi Axmed Kaariye Shaarub nin la yiraahdo Korneyl Nasruddin Canab in caalamiya laga wadaa soo carab talow gabadha sharafta leh ee madaxweynaha ninka qaba oo asagana ay ilmaadeer yihiin madaxweynaha ilaa badan ku dhaarshay meeshan fiiriye xildhibaanad Safiya Maxamed Maxamuud ayana waxaa liya waa suusu daawud tamayir soo dhaweynaadeen waxaan ka hadlaynaa dulmiga iyo dhibaatada uu ninka deegaanka Soomaalida haysta ku hayo dadka shacabka ah reer Doollo iyo guud ahaan deegaanka Doollo oo dadkeenu hurdayaalaha ama deegaanka deganaa ay ka hurdaan maanu kacay hadda anigu halkaan ka sii waday waxaadna jeeniliyada Cabdixaliin Axmed Ismaaciil ninkan wuxuu qabaa xaaska weyn ee madaxweynaha walaasheed waa wasiir ku-xigeenka koobaad ee biyaha Farxaan Maxamed Farxaan Dubayo madaxa wakaaladda warbaahinta kaliilka waa ninka gabdhaha soo caaya waa madaxa dumar cayga iyo deelqaafka deegaanka Soomaalida saas aan ugu aqaana madaxa Farxaan Maxamed Farxaan Dubayo waa madaxa dumar cayga deelqaafka deegaanka Soomaalida Fadhiye Maxamed Arte waa wada walaal hadda waxaan marayaa Farxaan Maxamed Farxaan Dubayo oo ah madaxa dumar cayga iyo deelqaafka deegaanka Soomaalida waa ninka gabdhaheedna soo caaya waa ninka hooyooyinka soo caaya waa ninka raganimada mooday in dumar la caayo alla ku dulle fahmid dulleysan weey waa weegya qof dulleysan ma in yartu saawajigiisa aan yartu saawajigiisa anika axadka dameerka weey yaa dullinimadu waa ka muuqataa si fiican u fiiriyo ilaahay ku taasay waa hal daanyeer ah weey yaa ma nin rago isku dhinac u jeeda hooyada caay kara Fadhiye Maxamed Arte u jeedaa waa madaxa dumar cayga iyo deelqaafka deegaanka Soomaalida Itoobiya ka bogoteen baan filayaa halkaan ugu gudba madaxa dumar cayga iyo deelqaafka deegaanka Soomaalida Farxaan Maxamed Farxaan Dubayo waa madaxweynaha qaraabadiisa adeer Yaasiin Dhal Darawiisheed adeer waa insha Allah waa iska hagaajin doonaa walba ma maqashay adeer nin walba eesaanti eelkeen kana aniga mobile ee la soco muhiimadda ka raac adeer xaraga iyo mobile meeshan looma iman waxa lagu jiraa jihaad baa lagu jiraa dulmidid baa lagu jiraa dagaal baa lagu jiraa adeer xaraga meeshan ma taala adeer waxa ka hor kamid ah dulmiilayaasha dadka dulmiya ee deegaanka ku tacadiya ee halka qoysa ee ka tirsan xukuumadda xil iyo xididtinimo ama ila xidid aan xil ku dhiibay Cabdimahad Maxamed Cabbaas waa in adeer labadooda aabe ayaa xagga hooyada walaal ka ah Cabdili bin Maadir ninkan waa wasiirka madaxtooyada iyo xubin golof fulina ay ninkaani waa ninka uu xiran yahay Cabdiqani Cabdilla Dheere asaga iyo Sanyare waa labada nin oo raba inay ku kaarta baxaan Cabdiqani Cabdille oo ka soo jeeda degmada Galaadi dulmina ku xiran muddo 9 bilood iyo something ah Yaasiin ayaa sorry lafteedu waxaan si waa qoliyihii kaliilko
yaa iska fajaas baan isiri ma garatay yaasiinow waxaan mooday kuwii sandareertada xunta inta soo qaata dumarka caayi jiray inaad tahay waa soo wadaa walaal hadda waxaan wadaa nimay cabdimahad maxamed cabaas la yidhaahdo ilma adeer weeye isaga iyo cabdi ilay labadooda aabbo ayaa xagga hooyada walaala ka ah waa wasiirka madaxtooyada iyo xubin golo fulin ah waa tuug weyn kani qaayan wadan weyn weeye waxaa ninkan u xiran cabdiqani cabdile dheere ayaa waxa u xiran yahay ninkan iyo nin la yidhaha sanyare oo asna aan soo wado baa raba inay ku kaarta baxaan kuna daraan liiska dadkii oramada laayay ee dowladda dhexe tiri hala soo aruuriyo bal aan idila wadaadaga ninkaanina siduu u egyahay ila daawada waad arkaysaa inaan maskaxdiisa iyo qalbigiisa hal caqliga ku jirin waa kaa fiican uga indha buuxsada waa weel maran weeye siduu wax u eegayaad ka garanaysaa maaragtay inuu qof un maaragtay foofa yahay yaa kani waa foofa xitaa ma soo noqdo waxay dhaheen wasiirka madaxtooyada halkaa waxaan kaga gudbaynaa daalimka weyn yaa cabdimahad maxamed cabaas rag badan oo cabdiqani maxamed cabdulle ka mid yahayna u xiran yahay qoys wadaagna la madaxweynaha haddee waa saaxi waanka idinku sheegayo bal tiriya dadka hadda aan idiin soo gudbiyay intay yihiin iyo jagooyinka hayaan waa yacni wax cajiib ah waa boqortooyo yar cornel sanyare waa madaxweynahan adeerkiis yaa madaxweynahan adeerkiis weeye يعني waxaan maqli jiray madarajadii faarax sugullaah cornel iyo generaal waxaan ahaynba reerku ma lahaba madaxweynaha iyo caa'iladiisu waa wada cornel iyo generaal aad iyo aad yaasiin dhal darwiis sheer dhahay haa cabdi daahir aadan nugaareed garowe suldaan waa ku salaamay cornel sanyare waa dadka ugu dulmiga waa daalimka ugu dulmiga badan ee gabdhaha soo xirxidha ee bahdila ee dumarka markiisu horena kufsan jiray oo dee darajadanba ku gaaray dad uu laayay iyo dumar ehelkiisa oo uu laayay waa ruux balwadiistaa waa ruux taariikhdiisa markii laiga sheekeeyey xitaa la yidhi nin ina adeerkiisa ayuu naagtiisa ka dhaca bal ilaah baa idinku dhaarshay meesha tacadugu marayo ina adeerkiis kale ayuu naagtiisa ka dhaca kooxdani waxay ku heshiiyeen dulmiga yacni oo heer kasta ay gaarsiiyeen isagana idinla wadaago cornel sanyare haddaad maqashaan ninka dumarka ragga dumarkooda dhaca waa ninkaa weeye waa ninka gabdhaha soo xidha madaxtooyadu fadhiyaa waa la taliyaha khaaskaa ee ina ilay waa ninka nin adeerkiisa xaaskiisii ka dhacay ilaa haddana qaba waa ruux aad u liita weeye yaa waa dayuus baa la ohan karaa asagu kani daalim waa dhaafay ilaa nin naagtiisi buu dhacay moogta kani waa dayuus cornel sanyare waa dayuus weyn weeye daalim asagu waa dhaafay waa dayuus weeye dayuus haatanna waxaan soo gaarnay yaasiin cabdi waris wuxuu ahaan jiray kaari ninkani dhagax buur markii uu
cabdi maxamed cumar ka ahaa kuwa korontada xira maarto baalayaasha fuula ila cabdilay sheekada wuxuu kasoo bilaabay sidii oday jaajaalayo ree dhagax buura bari dhagax buur booqanayay way waxay sarkeen oday ree dhagax buura markaasuu inaad naga sarmari waxaan ku ogaabay weligaa waad naga sarrayn jidhay biyo geedaad fuuli jidhay yaa cabdilay intuuna xukumay ayuu xoola xabsigiina wax ku bartay xitaa isagoo dugsi sare xitaa aan dhamaysan buu hoggaanka nabadgelyada noqda xilligii daawud iyo xilligii ninka la yihahda cabdullahi lugbuur daawudna sidii buu ula shaqeeyey ilaa uu dee markii dambe khiyaamay oo asagii karkaarka weydaariyey isagoo weliba markaa kooxaysi iyo weliba qabiil ku dhaqmay oo yacnaha ay la yaab ku noqotay nin bahalkan la yidhaahdo kasoo jeeda danood yani erayadu adeegsan jiray kamid ahayd see ku dhacday in annaga ay noo taliyaan annagu maogta waa isnaqaanaa anu waaga xitaa waddankan jooga si fiican baa anigu cabdilay isu naqaana laftiisa guri uu leeyahaan deganaa markaan jigjiga deganaa xaaskiisa weyn ayaa markasta iga imaan jidho iga qaadan jidhay kirada gurigiisa ku yaala ninka yaqaan baa yaqaanay jigjige dhinaca dooxa ee gurigii u horreeyay ee uu dhisto ee xoolaha deegaanka uu dhacayo ka dhisto gurigaas ayaan deganaa isaga laftiisa toos baan isu naqaanay oo uu ka warhayay inaan guriga deganahay halkii baan kasii wadanaa iga raalli ahaada xogahay marka xilligaas oo ninkani ahaa cabdi uu ahaa korontiistaha korontiista engineera ma ahan oo nin korontada xira ma aha wuxuu ahaa kuwa maaragtay birta inta fuula labada fiile iyo wax isku xirxira buu ahaa oo nin aada maaragtay aqoon ula ma ahayn markaas yaasiin cabdiwaris wuxuu ahaa dulaal kaari dulaal yaan kaari buu ahaa kaari imaanla buu ahaa maanta waa shaalaqa ugu yaraan shaalaqa yaa eebow darajadu deg deg badana yaa waxaan maqli jiray yaa deg deg badanaa darajadii faarax sugulle ah maydan baraa asagana yaa dulaal kaari sare yaasiin cabdiwaris xidig laan u malaynaya asaga taytalkiisa lama soo qorin lakin waxaa u saaran garbaha 2 caleemood iyo xidig baa u saaran yaasiin mawaagaasaan isku aag deganay jigjiga abti war si fiican isugu kay tilmaa waa kan yaasiin cabdiwaris kaariga weynaa oka bal darajadiisa noo sheega yaa reer etoobiya iga dambeeyo bal darajadan beentaa yaqaana ushaa maarata u haysto raas baa la yihahdaa asagu ushaa waagu dulaalka kaariga ahaa boodan jiray ushani aad bay hadda deegaanka soomaalida qaali uga tahay aad bay qaali uga tahay sababto waa usha dadka lagu garaaco ninkii hal gaari oo raasa geysta lacag buu ka qaadaya qof nin liyu boolis oo aan ushaa wadan ma jiro imagine walaalayaal ushaas yani raas waa ushii geedaha hareeriga iyo maarasa laga samayn jiray oo odayaashu ay ku qutubi jireen oo usha adag oo culus ahayd oo adag ma jabto xitaa dumarkeena lala dhacaa ushaas annaga waxaa noo qaabilsan ushaa nin la yidhaahdo ina cali bedel oo jooga baris cadde waxaa kaloo noo qaabilsan oo weliba nin dheer oo gacan dheer oo qofku hadduu xitaa 4 mitir u jiro gacantiisu gaarayso ninka noogu dheer ah ama dee doolaba ugu dheer farotol nin la yidhaahdo oo qolaacan ka ah bahalkan la yidhahdo guddoomiye ya annaga ushaa nimankaasaa noo qaabilsano 2 nin baa noo qaabilsan iyo wiil abti loo yahay
waana waxba hadda halkaan maaragtay kusii faahfaahin sababto ay tahay dee soomaalidu moogtahay waa iska qabyaalad miiranoo waxaa laga yaabaa wiilkaas inay dhahaan dan kale uu ka leeyahay oo weliba isagoo hadda dhibaatooyin badan laga soo sheegayey aniga lafteyduna aan si fiican isu naqaanay laba nin oo saaxiiba aan ahayn xilli aan deegaanka qaloocan iskuul ka furayey barayfada oo dadka luuqadda lagu baro aada maaragtay ila shaqeeyey nin dhallinyaraayo horumarka jecel ahaa laakiin haddeed xukuumadda xil iyo xididtinima ninkii galaa xaaraanta hore ka gaaraysa ilaan xoolaha shacabka laga xisaabi maya moogta waxaa ka mid a halhayskooda iska xaabso ilaan xaajigaad xidid tahay ya iska xaabso oo xisaab ha ka baqin ilaan xaajigaad xidid la tahay waa yani xoolaha dadka la iska xaabsan waad aragtay marmanaya waxa fooqaq dhaadheer nimankii baadiyaha joogay oo ka mid ahaa sanyara iyo ninkan la yidhaahdo dayuuska weyna sanyara iyo ninkan la yidhahdo yaasiin cabdiwaris oo asnadeed kaariga ahaa 8 sano ka hor bal ka waran yani haddii maanta lala xisaabtamo adduunka qaab wax loo xisaabiyaa jira yani hantida ay haystaan haddaan maanta xisaabina nimankan oo xitaa nidhaahno da-da ay jiraan aan xitaa ugu dhufano inay faa'iidayeen yani way ka badan tahay yani bal qiyaas 8 years before nin ahaa kaari nin ahaa oo maanta leh dabaqa ugu dheer jigjiga ya ika jawaaba bal dadweynow bal lacagtaa qiyaas 14 biyaano dabaqa nin leh 8 sano ka horna kaari ahaa haddii lagu dhufto noloshiisa intuu noola inuu faa'iidayay ka badan dee lacagtu hayaa ka badan aan kaariga halkaa kaari sare in cabdiwaris aan halkaa uga gudubno waxaan u gudbaynaa nin la yidhaahdo oo asna aala ilay ah ama boqortooyada ka mid ah oo la yidhaahdo corneyl shamaaxiye ninkan waa daalim weyn wey ninkan wuxuu haysan jiray jeelka weyn waa gacan ku-dhiglo weyn weeyo waa ninka dadka inta laaya oo jeelagaadeen ku laaya gidhibka ku ridi jiray corneyl shamaaxiye hadda waa laga qaaday jeelka ma haysto yaa corneyl bay dheheen bal isu eega waad intusi doonaa wejigiise darajada corneylnimada iyo da-diisa isu eega waa nin dhalinyaraa oon 30 ka weyneyn outcome liu bolis oo la aasaasay yani 5 sano ka hor bay ahayd liu boliska markii caadiga loo aasaasay ama 6 sano ka hor hawka marka nin 25 ama 30 jira inuu corneyl gaaro hadiibana corneylnimadu sooti yani aqoonta iyo hawlgallada iyo lagu qaadan jiray maaha muxuu hawlgalo sameeyey waa qofkan xunka ribaadiyahaayo markii soo raamaha lahaayo aan iska garayna ila nimankani moogtahay aad arkaysaan oo naloogu sheegaya askarta markii horena waxay ahaayeen shacabka dhiiggiisa ayay quudan jireen oo duurkay ku jireen markay duurka ka yimaadeen nashaar baa naloogu xiro weli shacabka dhiiggiisa bay quudanayaan yani hayga raalli ahaadaan bulshada ama jamaacadda onelef ayaga oo lama jeedo laakiin dadkan aan ka hadlayaa corneyl shamaaxiye waa ninka dadka ku ciqaaba jeelogaadeen waa madaxweynaha in adeerkiis waa ninka inta isugu yeera dadka xabsiga dhexdiisa ayaa dumarkana dharka laga saarayaa raggana dharka laga saarayaa bal tacadigaa ka waran ya yani waxyaalaha laga sheekeeyay waxaa ka mid ah nin baa xirnaa dhinaca kalena waxaa ku xirnay sodohdii waxaa asaga laftiisa la xirnaa sodogii ninkii waxaa la sameeyey maalinkii markii laysu yimid oo dadkii la qaawiyey oo barxadda lasoo istaajiyey ninkii oo qaawan iyo sodohdii oo qaawan baa lasoo hortaagay ilaah baan idinku dhaarshe dhaqanka soomaalida iyo diinta islaamka midna ma soo gashaa cadiyada ay geysanayaan xukuumadda xil iyo xididtinimo yacnaha gobolkeennii ka dhigay bahalkan la yidhaahdo boqortooyada sacuudi carabiya oo kale
sacuudi carabiya ba dhaantay saadadiyo kale ku jireen korneel shamaaxiye waa ninkii dumarka qaawin jiray waa ninkii isu keenay nin iyo sodohdi diin dhowrimayaan oo dhaqan dhowrimayaan oo hadda waa nimankaad garanaysaan inta soo istaajiyay wiilal yar oo masaakiin ah oo jamaacadda onlef ka tirsanaan jiray TV-ga inta soo istaajiyay yiri waxa tiraadaan xoolahan wasi jirna inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun yaani asagu ilay wuxuu islaha xilligaas eebay jamaacadda onlef laakiin wuxuu hilmaamay inuu ceebeynayay dhaqankii suubanaa ee Soomaalida inuu ceebeeyay diintii islaamka inuu ceebeeyay magacii islaamka inuu ceebeeyay magacii Soomaaliyeed inuu ceebeynayay magaca qabiilka uu ka soo jeedo ilaa xoolaha warma xoolaha la fuuli karaa xageen ari laga fuulaa qaar ba waxay dheen yani waan qaadan lahayn waqti haday dhiilayaan lo'da iyo geela iyo xayariga raala hada adii ma dhacaya ma yara amusaya sidiinta islaamku nafareyso raaliga hada marka wax yar لا إله إلا الله أنا halkii ka sii wadnay xumaanta iyo diin la'aanta iyo dhaqan laawanimada ay wadaan xukuumadda xil iyo xididtinimo iyo ragga xigaalada ay xididkana ah ee isku safay xafiisyadii dawladda waad aragtaa ilaa 12 baa tiriyay waa isku wada qoys ninka ugu shisheeya wuxuu yahay nin gabar ka qaba ninka ugu shisheeya ayaa wuxuu yahay nin gabar reer Yuusuf qaba bal imagine waxay maanta maraysaa xilha lagu dhiibay gabar reer Yuusuf guurso ama xilha lagu hada qayb yarbay banhaya Yuusuf waa dad sharaf leh waa qabiil balaaran xurmo iyo wanaag baan u hayaa marka magacooda aan sheegayo ma aha inaan caayayo xasha lillah يعني waxaan sheegayaa qaabka xun ee magacoodii ay u adeegsanayaan kooxdan yar ama xirta inay ilay ayaga ayaa magaciina haleynaya ka qabta anigu ma haleynayo sharaf baad iga mudan tihiin waan xurmeynayaa idinkay dumarkiina iyo raggiina iyo ugaashiinaba laakiin waa idin doow xumo waa idin dadnimo xumo waa idin dullinimo in magaciini xirta ilay ay baabiiso waa idin dadnimo xumo inaad xumaanta ku raacdaan walaalayaal inay maanta yiraahdaan ama reeca Yuusuf ha ku qabaan ama reeca Yuusuf ha ka qabaan ya gabadha dhashay ama ha qabaan ama adigu ka guurso baad xil ku heli kartaa haddii kale xafiis ka dheer oo ay xeerkii deegaanka iyo shuruucdiiba ay meel ku raareen oo ay noqotay CV-gaaga marka aad soo gudbinaysid shaqo aad raadinaysid inaad ku soo dadhid inaama hooyada ahayd reerka ama xaaskaagu tahay ama gabadha ninkii walaasha ninkeedu yahay aad yacnaha ku soo dadhid heerkaasayna bay marinayaan magaciini korneel shamaaxiye waa daalim weyn wey waa gacan ku dhiigle waa dhaqan laawe waa diin laawe ila arka korneel shamaaxiye bar korneelnimada xitaa fiiriye darajada uu wato iyo ma isleeyihiin daadiisu eega waa nin dhalinyaro ajaayib korneel baa waxaa lagu yahay waxaa lagu gaaray wax 5 sano gudaheeda lawan ognahay Liu Boris wuxuu jiraa 5 year ama 6 year meelahaas uu jira buu korneel ku noqdo waxba kama jiraan waa darajadii faarax sugle هذا هو درجتي إني إلي يو إنا لما قولا إيو سنيرا إيو هل كان أقول قدبو دين لاوها وين دالم كوين
دبل دولميري ويان هدنا وكورنيل شيخ مختار شيخ صوباني وإناديركي مدحونا إناديركي ومدحا إذن كسردونك كليلك أنا كل شيء ما جي اسمه رباط وكورنيل شيطان مختار شيخ صوباني نقول أبيه شيطان رغم اللي كان سوى شيطان لكن أبيه يواني شيخه ونكسم بوها دم النجم وقليل نكني وحو هيسا حايدا سردونك ولا رجال حقيب سردون وصوت تابرت يعني كليب كي لقدو بيماني كسو حروني يي I believe إن هلي كرو جمهد بوها رامله نكني يا كورنيل يعني أنا لي بوليس كشانتا سنة تيرا أما لحدة سنة تيرا باسوق بتيني كان ما أنت روا كورنيل دي بالقياس السوق صدح سنة ما قرأ فرتنو كجرا بدي كبا هذا هو مدحي لما إنه بسوق الديجانك نكان هو نك دتك ظلمية وأنك دتك كورنتا كوقبته وأنك قولك بيها قبو بركده بيها قبو كجرا جيلوغادين كل حتى على ذاك كوريدا ودال وين وي markii soorana ragigi xoolaha fuulnaayiri ayuu ka tirsanaa ninkan ragii diinteena islaamka iyo magaceena Soomaalnimo iyo sarafteena ku ciyaaray ee yiri xoolaha fuuli jirnay ayuu ninkan kamid ahaa ee la islaha jamhadda onlef hal ugu magac dilo laakiin jamhadda onlef xasal la kuma magac dilmin hal ayga aato ama ayga aadaan dhalinyarada iyo madaxda aaminsan fikirka on elf anigu wax walaada igala ma dhaxayso xumaan igala ma dhaxayso sharaf baan u hayaa laakiin midaalaan ku soo qaadanaya nimankani meeshay inooga yimaadeen waa in akalaadi loo dhigana waa nimankii soo khiyaana la oran karaa marka magacaas aan ku celcelinayo yaan loo qaadan khalad فكركينا ما مسني لكن واحد يجمد أنتهين تقولين يا شرف لكن اسكو فكر ما خاصة معنا إنه نقرنه ما أنا مسني حبض إني حلقة أنتو لكن إذن كو أنا كحرمين يا فكركينا أسي أو أنا إلى فهان الشيخ مختار شيطان مختار وجمع دوري وكان سجونه walaalayaal dadka ka barta kuwa dadkiina dulmiya dumarkiina nacaaya dadka ka barta fadlan dad ka barta oo kuwa dadka ka barta yaasin darwiish yes sax weeye laakiin anigu يعني وان فكر كون كوكلا دواننا هاي مديدني هلقن كودا مديدني شغاضي هيان فكر كودا كما سهر جيدو لكن اسكو فكر منهين هلقا اياقو غورقا كو دقالميان انقو غورقا ايان كو قالنكا ايان كو دقالميان هل ميل بانا وحو ودا wadnaa markii dhinac laga eego halkan waxa ku xiga nin la yiraahdo burjo waxa la dhahaa Cornel Deeq Burjo dadku wada Cornel baa war laba xidiglihi meeye war xariglihi meeye ya reerku wada Cornel general xidiglay laba xidig malaha aqal ku darabaasha madaxweyne adma Umar hadii xukuumadda xilliga xididnimo aqal ku dara reerkii wada Cornel baad ka dhigtay meesha waxa la moogtay laba xidigla iyo حرق لي ألف لي لبا ألف لي صدح ألف لي درجة ما قررنا بكبر يعني كتقانان يحال لي المارن وإذا مدى نيو بوليسكا أعتبر كبحية تيجيجو ويمد جيران سمورة وهيستا إذا كحوجة دلك إثيوبيا لبا يريبو كحل لي مانكا جيران سمورة ونن تكريا مسلمة
wuxuu arkay madaxdii Soomaalida oo ku haysa bagaan u gaarnay heerkan bagaan u gaarnay heerkan bagaan kii ka bagaan u gaarnay u leeyahay wuxuu kaloo arkay saraakiishii la tirinayay oo dhamaantood wada shaalaqa hebel marka wuxuu yiri Soomaaliya horta biyo bagaan u gaarnay markaad leedihiin biyo ma weynaan islaam ahayn biyo ilaahaygiina gaarsiyaa ma hal xageedka ku ilowdeen biyo General Samora dhahay taas waa mid biyo teeda kale biyo ciidankiinu mashaaraqa u weyn mashaaraqa u yar ma yeebiyo hamsaalaqa mutaalaqe waa inta hadda aan weydiinayo Abdilay daalimka weyn Cornel Deq Burto waa saadka liyo boolisku haystaa waa hantiile weyn ninkani taariikh samahayo laakiin wajigiisa ka muuqata inuu yaa xaraan badan cunay yani surkii iyo waxa isku dhigay jirka intiisa kale aka saad ku haystaa dad maqashid maxaa weeyaan waa musuqista weyn weeye halkaas aan uga gudbo xukuumadda xidhiidhnimo iyo ragga ka tirsan halkaa uga gudbo aan u daadago caydii dumarkeenna iyo dulmiga lagu haysto lagu hayo doolo bari war nin baa haray Afrikaan oo aan caadi ahayn waa kan nin ay maanta hadda general baan gaarnay general ay maraysaa general baan gaarnay waxa soo baxay ninkii kaariga ahaa walaalkiis korneelkii kaariga ahaa walaalkii baa soo baxay waa general Cabdi Aadan Waris ana adeerkii waa general ciidanka isla mar ahaantaasna wuxuu sifo khaldan ama kontrabaannimo u soo galiyaa deegaanka kalluunka shirkadda kalluunka soo galisa deegaanka ayaa lagu naasnuujiyay ragani waa geel raacdi ama xoolo raacatadii Sheekh Abdidaar ama dulaalintii Sheekh Abdidaar ama kuwii korontada xili jiray wax maanta generaalada iyo nalagu sheegaya iyo madaxweynayaasha iyo korneylada iyo kula waxaan ma Sheekh Abdidaar way garan doon reer dhagax buur way garan doonaan haday arkaan waa ka general way war general kan wuxuu 5 sano lagu gaaray waa ka ninkaasi waa ninka wuxuu leeyahay shirkadda soo galisay deegaanka kalluunka Soomaaliland buu ka keenaa xagee buu ka keenay xoolaha uu kalluunka ku keenayo xagee buu soo kalluun ku barta wali hilib geel iyo caana geel buu dhami jiray ma kalluun buu yaqaanaa badba inuu saarag baa laga yaabaa Deeq Cabdullaahi Buraale oo caylada madaxweynaha waa ku xigeenka madaxa maamulka DDSI tagaas waan fahmi waayay madaxa maamulka DDSI maxay tahay waa nin dhalinyaro asna aka caylada xaajiga aan sii socono waxaa la soo gaaray ninkii darajada ku helay dilkii walaalkiis ama in adeerkiis qisadu ma haya iyadoo faahfaahsan laakiin kolla ninkani waa ninka la yihahda Cabdiraxmaan Buraale laba goole waa madaxweynaha in adeerkiis waa ninka xitaa hadda aabihi yacnaha dhibaatooyinka ka qayb qaato waa ragga ku dhiirageliya ama dhiirageliya in dumarka la soocaayo Cabdiraxmaan Buraale laba goole waa general ciidamada liyu booliska ayuu haystaa waxaan taariikhda ku hayaa ama historygiisa ka mid ah ninkani inuu keenay madax nin adeerkiisa miyuu ahaa mase walaalkiis intuu dilay isagoo jamhada ayuu madaxii ka soo jara markaasuu keena sidaa ayuu wuxuu ku noqday double general isagana ila daawada waa ka daad maqasheen Cabdiraxmaan laba goole waa ninka bal jibsigiisa iyo araggiisa iyo generalnimada isu fiiriya generalnimadu si kale ma aha
ودلكي ولالكي أمين أديركي ومدح أنت كسو شرعي مدروابا وكان أوت كتشوجني بعد نمان كان مارتي درواج مركي دلان بعرفت كسو شري شرين مدح حسي مارتي أيوة عديان يعني ما أنت درواج سو دلين من ولالكي دلي ومدح كتشري بان عقل كسو جنا يوناك يا ولا ليال ولالكي دلي ودرجة كوالي مياه عقل كسو جنا خباك يابي كان عسدها وين ديجانك وقولنا حنتذا بدن وخضر عبد إلي أمين خضر إلي ومدحوينها ولا الكيس سكو يسقى بايه أنك وقوها حنتذا بدن ديجانك صدح فوخ يجيجيجا كلية ولو من الليل هذا مدحوينه هو دسا خضر إلي ومدحوينها وهالكن تاجندي وأد بوجيه خضر حنتدي ديجان كان وابوبي وحكوا ولا لك يكون راعي هو يضاد ولا شيء إلا صاحره حبر يرتض إنه عبدي يرجيش صاحران أيو كراعي وحكوا راعي إن دمرك لصاعايو اوكي haddaan kaga gudbo xubnihii ama xirtii xukuumadda xil iyo xididtinimo intaas walaalayaal halka ayaa deegaankeenu maraya yaani wuxuu marayaa in reer kaliyihi deegaankii maamulo qabyaaladu iyo qurunku iyo musanaagu iyo karaay sabsaabineedku meeshu maraya waa halka fiiri isku dulnoolaanshaha deegaankeena halkaas oo maraya isku dulnoolaanshaha deegaankeena wuxuu marayaa in nin naagti laga furto oo nimanka saraakiishaayo isku qoyska ah nin kamida uu dulmiga ku kacay walaalayaal inaynu taa ka aamusno xaq maaha idinkuna inaad ka haashaan baa la rabaa sidaan anigu uga hadlay inaad fiidiyogan sii gaarsiisaan baa la rabaa oo dulmiga daalimkaasi wado iyo daalimiinta la socda aanu ka dhiidhino oonu ka dagaalano in dumarka naga la caayo sharaf maaha in dadka naga la xiro sharaf maaha Itoobiya oo dhan waa la sii daayay maxaabiista siyaasadda u xireed waay abdiilay aad u haysataa maxaabiista siyaasadda sida Cabdiqani Cabdulla Dheere maxaad u haysataa horta hal bay iga xasuusinay daalimiinta gooyahaaga dhooban ha ku quustaan sida aad u gashay xildhibaankii ina daahir ninkaad markii horena ku dishay Cabdullaahi Itoobiya ninkii nimankii dhalinyarada ahaa ee lagu laayay laga soo qabtay Dhuusamareeb meedkoodii ee intaad soo sawireen darbiyada madaxtooyada ku dhajiseen agta saarayay ilaahay baan kugu dhaarshay madadnima war meyd muxuu yahay nimanka dadnimo waxa deegaankeena maamula ninka nin meyd ee dhintay inta sawir ka soo qaatay ee madbacad tagay ee yiri ii daabac darbigii madaxtooyada ku dhajiyay ee kuwii madaxafiisyadada iyo wasiirada isku sheega oo ah inta soo yaaceen ay agta inta saaraan isku soo wareen waxa kamid ah daahir ina daahir xildhibaankii waxaan ku dambeysay shirkii nimankan xildhibaan la isku sheega xaraan kuna xayaasha ay ku shireen jigjiga ay xasaanada kaga qaadeen xildhibaan buu ahaa golo dhaxana uu ahaa wuxuu ka soo jeedaa qabri bayax xalay baan soo dhigay asagoo meydkii la soo sawiray cagta saa ugu haya yani waxaa helay abaalkiisi baa la siiyey sababta wuxuu ilaawo in cabdi yahay qabyaaladayste xun inuu cabdi yahay qabyaaladayste ayuu ilaawo wuxuu ilaaway mahmaadi ahayd fiqitolki kama janna tago cabdi nin reerkiisa dhibaateeya haddana sii dhibaateeya kuwa dhibaateeya run baan idiin sheegayaa
تقتل كمان جنته اللي بان كاس ما يسكت لو جمعي لكن أي سنة أنا ظاهر بالي هذا قبل ما يحيوك الصبح وحكى لعبدكم أحيرين وحكى لعبد وما قاعد حسانة وحكى لعبد مرة يعني أنا كحر ولا ما حيرين لكن وأنا برسيس ولا حيريا قفك وأخص مركز الحيرو مركز لقبتين الحيرو وحكى له maaha maxaad nin reerka iyaga cag u saadhay wey ana hadda idin sheegaya asagana gaarsiiya hadduu nool yahay xildhibaan waxaad eedo lagugu xiray wixii adigu aad islahayd aad darajo ku heshid aad maaragtay tustid madaxweynaha inaad maaragtay daacad tahay ee ah inaad meyd cagta saadhay dhammaan kuwii cagta saaray nimankaasona soo diyaar garooba taas ay idin dambaysa dembigaad ilaahay ka gasheen ayaa لأنك ترياه نبض إن هذيك عكور صارسا مع عقل قال لا هذه ما يلو ذا عبدون قبيلة السيئة قل لي ساسا قدام بيسا نكسو عبد التاجرة سيدا حلوان كايا قدام بيسا سالي نادرك سال قدري مركو ظالم يعني نادرك هو ظالم كلوها عبد الأيتوبيا أصير بس ظالم كلوها وين وهو هل كان لو يمد والله يا بيسون ولا هذي ها قرن صحيح ها يعني مزول قاكي وهذه قرأوا بكلية قرأوا محيطة مقاد والله الله يا نكلي هذا عبد الأيتوبي وهذا حبسي وكتير أصلا يا قرأوا بنديه كتير بنتنا سوهر ساقنا وانا صايشان وانا يعني والله يا ابن وحنا ورده يعني نكلي موحد موضوع أنا كادريين تحسبك أنا هاي و10 سنة يو marka daalimkan hadda laga qaaday xasaanadii laga qaaday ina daahir oo meedka cagta saaray iyo daalimkii ka horeeyay Abdullahi Ethiopia iyo daalimka xilkay dhubay ina ilay wuxuu waa daalimiin nin kasta oo abdi ilay xil u haya ama maanta iska gadaya ama maanta waxa weeye ficil xun ku kacaya soo abdi istusaya waxaad ogaataan halkaas ku dambaynaysaa damiir laawow دبير لا ودرا جلان با كو دبيس حبسيغو لوغو تخابانا ku xigta runtii waxa ka hadlaya saaxiib deegaankeygii DDSI Ethiopia Soomaalida Ethiopia ka jigjiga nin kasta oo inay ilay u adeega saa ayaa u dambaysa ku quusta Abdullahi Ethiopia iyo ina daahir كوست دلائل توبيا قعدتي مديك يا عبد الله هنتي سبوا كلا وريجي بين بنتو شو يروح كل شيء يا وكاني شركة حزب سوفريسي بو أصلا دالم بو أهم وقت لا دالم وقتاي بس كحدا مدو إسكمو قرن يعني أنت اللي سوفريسي واحد يري واحد ترى هذا دالمين بان هاينو وان خلدنا يو ونبديد بان هايو واحد مركو أنت يرو على قد ضبطي kadib waa la qabtay hantida laga wareegay wuxuu ku jiraa yani central jailka maartay jeel ogaadeen dadku u yaqaan laakiin anigu aan ila leeyahay jeelka dunuubta dilka iyo tacadiga deegaanka Soomaalida halka ayay maanta midna ku jira kii kalena oo daba socda marka nin walba oo daalimkan u adeego taasa ku dambaysa laakiin waqti ayaad haysataa aad inta uga tagtid shaqadiisa oo aad sabab tagtid aad ku nabad gashid waxaan u dardaarmayaa dhammaan ciidamada liiga booliska saraakiishooda iyo wasiirada adalla shaqeeya waxaad ku nabad gali karaan ama bari aad kaga baxsan karaan maxkamadaha iyo dacwadaha idin sugaya inaad maanta dariiqiisa ka leexataan iskana dhiibtaan Addis Ababa waad ku badbaadaysan Addis Ababa waxaad ogaataan dalku in isbedel ku socdo haddii isbedelkaasi yimaado prime minister kan la doorto khasab ay tahay dhammaan xukuumadda xilliga xididnimo xabsigay tagi xisaaba iman xabsigana waa la geyn marka intaan la gaarin hadeertaanba isaga carar haddii kale intaan anagu ku soo gaarin ama dulmidiid iyo kooxiisa gudaha iyo dibaddaba aysan
soo gaarin deegaanka oo xisaabtu aysan iman ya asagaaba ku xiri Cabdullaahi Etoobiyana kama fiicnid inaad daahir iyo deeqmaaqa waxayna kama fiicnid xildhibaankii shalay laga qaaday xasaanada laguna dhex aayay holka xildhibaanada marka nin walbow halkaa ayaa ku dambayn insha Allah waan ku dheeraaday barnaamijka noogu xig doona wuxuu noqon doonaa insha Allah dhammaan hantida hadda si kooban baan u sheegnay hantida ay leeyihiin wasiirada iyo xigaalada iyo xididka xukuumadda xil iyo xididtinimo oo dhammaystiran oo sawir laga soo qaaday oo kalibi laga soo duubay hantida bangiyada u taalla oo ayadana lagu maqan yahay akoonadooda in loo soo maartay soo qora sababtay waxa socda in xitaa akoonadooda la fariis gareeyo dawladda cusub ee iman doonta barnaamijyada waxa kamid ah in akoonadooda la fariis gareeyo waxaan ognahay xitaa inay inta magaca bedesheen kuwa maartay ilmaadeertooda iyo eheladooda ay akoonada iyo guryaha ku qorteen laakiin dawladda Itoobiya ka indha dheer reermiyigii shalay ka soo orday dhagax buur oo kaariyada iyo korontada kuwa fuula iyo xamaalatada ahaa dawladdu ka indha dheer akoonadooda waa la daba socdaa hantida ay already hadda leeyihiin oo deegaanka ku taala waa la tirakoobay insha Allah maxkamadda adduunka heegna yani waa la wadaa petitionkoodii iyo dacwadoodii si loo qolay dulmidid group oo America iyo Europe ayaa wada in laga fayl gareeyo hadday ka baxsadaan oo isku dayaan markii xukuumadda cusub timaado inay dibadaha galaan marka barnaamijka ku xiga wuxuu noqon doonaa barnaamij aan ku soo bandhigi doono dhammaan xogtooda ya dumarkii xooga ku guursadeen xoolaha xooga ku qaateen guryaha ka dhisteen oo kaliya laga soo duubayo akoonada ku subteen oo aanu aad iyo aad ugu kalsoonahay insha Allah in loo soo gudbin doono yani statementiga akoonadooda loo soo gudbin doono hadii Ilaahay yiraahdo kuwa ayaga magacooda ku qoraya iyo kuwa ay dadka maaragtay ku hoos gabadeen oo magacyada dadka kale ay ku furteenba walaalayaal sidaa iyo nabadgelyo khayr baa idin rajeenaya dhammaan waxa idin dardaarmaya inaan laga daarin inaan laga seexan inaan laga baqin war qofka bini aadanka hay mar buu dhintaa mar baa la duuga laba jeer ma dhinto ha ka baqinina inaad dulmiga diidaan hooyada hal xiro walaalka hal xiro aabaha haddaba xabsi dusha ka furan bay ku jiraan ma hadda yani free gaar ahaan waxaan la hadlayaa dadka reer doolo ma sha Allah aad baan ugu mahad celinayaa aad bay sharafiga mudan yihiin galbeedka doolo ama familiga ama qabiilka Makahil oo shirku qabsaday America ay kaga dhiidayaan ama ku diidayaan dulmiga uu wada Cabdi Ilay sidoo kale waxaan dardaarmayaa dadka ka soo jeeda doolo bari inay sidaa isu abaabulaan inay shirarka qabsadaan inay ka hor yimaadaan dulmiga deegaankooda ka jira ayaga war kuwii la dhashay isku reerka ku abtirsanayeen baa diiday adigu xaggee joogta maxaad xiirinaysaa war shirarka xukuumadda xil iyo xididtinimo ay ku qabatay America kama muuqataan war shirarka dulmidiid kama muuqataan war idinku waxaad tihiin yacnaha luqad dhexyaal baa tihiin meel bal aniga haddaad doontaan habay taageerinina laakiin ama xagga ka muuqda ama xagga ka muuqda ya يعني ما واحد waxaan maqli jiray aakhira xoolaha iyo dadka warwaran iyo meel waxa la geeyaa caraafa la yaado ma dadka caraafa la geenayaa tii wadannimo yeesha oo dulmiga diida oo dhiig isu yeela war mar baad dhimanaysaan dadnimo ma aha inaad daawatid walaasha oo maalin kasta la uleynayo dadnimo ma aha inaad daawatid xildhibaanadeena federaalka aabaheed gacan baa la jabiyay qolna bartikeeda lagu jabiyay wiil oo lii booliska ku jabiyay intuu ul kala daalay يا بل ميل كلبه آدم با قدام نور ديني بسوق برتكيس قلاعا لقولي مش يعني أنا قاعد لا وين كل شيء قدام قلاعا ومقالة دي سيت يعني يدي اللي شفا دي ساو بدن ويلي يربا أول كلا دارو اللي بقى عن تبي بل فيري وموادن
وأودي وين وأن السوش غيني إلا درجي والدرجي أمك عن قادين قدما درجي أمك عن قادين لكن ولا سيارة صاير ترى ما حلها إيه بهال كان لي هذا ما أنت شارك سوى بدأ شيء سوى قبرتك يسقى الله عملك وقراعي يا ويكحشون وين حتى مسؤولية يعني قبل لن أو اللي ما ندفع دلالك إنه أبيه هذه هاي وكحر من وين يا حتى أسقى أذن ما وحشون وين ما وحشون وين إن قبل ليسوا اللي ما ندفع دلالك هاي ومسؤول يعني مسؤول قرنت هاي ما مسؤول دقيقة حتى ما هو مسؤول قرن ما وحشون وين ورئنا آذان يرى عبد الله لقول توقتي ماشي لي هذا قلعان وواحد ويقع عنته حبض الله غلفت ونكي حبض كلته إلا ما أنت وبناك تشوقا يسوق السمرة يا قلعان وليك شقية يا يعني حبض يا لقول إذا حبض واحد لقول ثاني حبض وتا ما قري وتا ويلير وغربة تشوقا ودي بدل لقى كياني إن أكلوا هذا يكسبه أسوون وحبة ودن وشرعي جه يعني حتى شرعي حبر دقاق ما دقايو شرعي حبر دقاق حتى ما دقايو إنه على رقمه تذكر دولة بريو أما علي إبراهيم ما تسانا ضدني من مودي وراني جا يتاجرننا أنا جا خاصة ما أنا جا يتاجرنا أما حاجة كم موضة أما حاجة كم موضة أنا سأسمع من تاجنا هيبة أما تاجر ريال دول ليس النقطة وتاجر إلى يحتيسه أما معارض موضة النقطة وأوجهي هوستا كتر هذا أنت أنا جاي للصحيح ده أنا دروان ما حسنت والله بالله طلع إني وحق باتها عيد ذاك بدن ضد ما أقول هذا أنا جاي للصحيح إنه هوسنا وحيقول شيء إنه ضد ما أقول هذا أنا ضد ضد دتكيني أنا ضد ضد دتكيني ضد ما أقول هذا أنا جا خصوص حبيان اللي يقول شيء يا وربل إلى بين يقدر شكر إنك ولا الكحرين هاي ولا رجع ولا له حرين ينحل لا شيب رجع أنا دوديو عبد الله الظاهر ورير إنه قرد فيل نيك كلامك إساق مقرأ سجنا يركا لما تلقود أما ولا له وشوغان تبدأ هي شوغان كاركود نيك كحل لا ولا الكسويران هذا الدبرين حاسك على كأنه لقول هي هديدين حداد أوجلاتي هو يضاين العايو حداد أوجلاتي ولا الكاي حرين إن دمنها يسارتين ولا برينا هو يضاي كني ولا شيء كان بالغورا لأن محمد هذا برينا ولا شيء هو يضاي كان بالغورا مركا أنا جا هبقى التاجين أنا كلي جايبة أسكوك أنا عسان كلي جايبة التاجين إن إلي إيو حكومة الساحل إيو حديث النمو أنا لا دقالمو أنا مدح كسو عرتي كفن طيرة أنا ننك بغين أنا مثلا إلهي اللي يقول طلق على إيو يدري أنا لما رأيه أنا ننك هاي بيسني أنا هدي الله بعد ديجان كي تجيه أنا معارضة والأمريكا تشوكتها مخصص بقيسان حاشا لله وردنا ورديلك وروافع أنا مضمر كده ما أنا غربي يا أي جماعة لكن حتى يدرع واشرة يا أنا أبتي في عيني أنا أبتي حب رجوا لي هو يعي أفكذا يعني أفكذا ومغوره هو يعي لكن يدرع واشرة مركا حاجات كنا سقنتين شيء الله بريء وحاجات كنا سقنتين ورليدين دل دمركين اللي جرا وضياشين اللي جرا هرمر ليدين ديد حدودي اللي يدين كحير مستوغيه اللي يدين كحير عاقي سيدا وحمريات $1 ومحي واحد ما تسوقيسان ورحبت بي أنا مليه حبت هلا ريدو أنا مليه شقاقها لابرو ور أفكاغان كو أديغو ورقالين كو دقالان أدونكو ما أنت ولا في حلي غور اللي قد قال ما قال كنت قال عبد محمد عمر روحان ليه يا دعايد بدو أتكيسن ويدي والضمر كي كو عيدي
ma nin ragaa iska dhicin kadhaa annagaa diyaar u ah inaan qalin kugula dagaalno annagaa diyaar u ah intaad dulmi wadid inaan kula dirirno annagaan marnaba kugula heshiinayn inaadna kala qaybisido jifo iyo noo kala saadhid bahalkan la yidhaahdo reer annagaan yeelayn sid waaqan dumarkooda la soo caayo annagaadan hooyada iyo waalidka iyo dadka iyaga caayi karin kuwa darajada ku haya waa ilma adeertay waa ilma adeertay cid igama dhowaa imana soo caayi karaa anna ma caayayo sababtay dambiba igamay gelin haddaad ka heshay dadka qaar kuwa dadkooda soo caaya dadkaygu intaasay ku fiican yihiin alxamdulilah ilaahay wax looga mahadiyo wey isma caayi karno ninna ima soo caayi karo gabarna ima soo caayi karno anaa banaan degay anaa saa adiga banaanka kugu yimid wiilkii wax iga soo sheega ama gabadhii wax iga soo sheegtana banaan ugu tegi ma nihin dad isdulmiya ma nihin dad isku deelqaafa sharaf ayaan leenahay dhaqan ayaan leenahay salaadiin quman ayaan leenahay waxa weeyaan halkan waxaan kusoo koobayaa yaa duduni dugaalse ma leh in ili waa dudun yaa dudun dugsi ma leh in ili waa dudun 8 sanaan kor iyo hoosba wax ugu sheegayna wallahi deegaanka sida nooga daa ka duduni dugsi ma laha وبالله توفيق إلهه خير كنوافجي دول مديد حقو ليستو القاسن كبحيا ودني ربا ولا لا أدود مع سنتهاي نكسول وينيا لنا عاقة كوض قرال يقول بكدي طلمقا صلاة دي صبح با عدد اللي إيقاري حلقا وحنسو جيدا أما أن أردفري وحكا لماهن waa inaan ka hortago oo diido dulmiga iyo dumar cayga waa inaan aaminsanahay gabadha la soo caaya inay walaashay oo kala tahay waa inaan dadnimadayda ku muujinayo iyo dareenkayga inaanan ogolayn hooyo in la caayo walaal in la caayo midii dhaxday in la caayo wardaalmidoo kalena waa ku darsanayaa gabdhaha la soo caayo haddii inta lagu caayay ninkaagii jigjiga shaaha la cabayo ninkii ku caayay haddii inta lagu caayay walaalkaa jigjiga shaaha la cabayo ninkii ku caayay haddii inta lagu caayay aabbahaa jigjiga la cabayo shaaha ninkii ku soo caayay yaa walaalii kan ku qabana iska fur ileen haddii asagoo nool oo ku qaba nin qeyrkiisii kugu deelqaafo oo ku caayay asuu kaa qaban waayey berri waxaad ogaataa in la dhahayo noo keen ayadan u baahanay inaan la tumanee noo keen walaalka walaalnimadiisa jar haddii asagoo nooloo jigjiga jooga ninkii ku caayayna hor fadhiyo asna walaalnimadiisa jar kaana aabbaha waa waalid asago lagana fara dhuudhuuban laakiin aabba gabadhiisa la caayo durbaan tumaya ah waa dadnimo xumo naftu marbay go-daa ha yeelinina hooyooyinkiina in la caayo ha yeelinina dumarkiina in la caayo ha yeelin xaaskaaga in la caayo ha yeelin walaashaa in la caayo dadka dumarkooda la caaya jigjiga cidi ogama badna adeer sii jeed iyo soo jeedba waa lagu aarsadaa oday xunoo laba oday xun afku burburay iyo wiilka xunkaayoo haysta ESTV dee maalin kasta waardi lama socdo suuqay keligood maraa gabdhihiina inay caayaanna ilma adeertood meeda hadday walaalihii xiran yihiin
walaal waxaan aqaanaa ina suldaan taani markii la soo caayay dhinaca kalena adeerkeed aabixid la dhashay baa ku hayay waanu dayrina ka warantaa adeerkeed aabixid la dhashay baa ku hayay taas waa mid dhimato waanu dayrina hadeed xaggana waxaa looga hayaa gadaal baa looga tagaa iyo waa qabxad iyo waa qurun iyo waxbaa lagu hayaa waa gabadhu adeerka u ahaa bal inuu difaacay iska daaya asagii baa soo caayay adeer buu yahay youtube-ka hadda ku jira waad heli kartaan haddaad baartaan kuwan kaloo hadda la caayayo salaadiintoodii baa fadhida meesha lagu caayayo cuqaashoodii baa fadhida oo daawanaya laakiin hal mid baan leeyahayo maadaamaan aqaano dulmiga ina ilay iyo dhibaatada suu mareego salaadiinta yani dirkii garaad wiilwaal sidaa uma liitaani waxaan u malaynayaa waxbuu ka hayaa khasab waxaa jira salaadiinta wax laga hayo documentary baa laga hayaa noocuu yahayba ama iyagoo lacag maaragtay loo dhiibayo ha noqoto ama iyagoo xaalad khaldan ku jira ha noqoto ama xitaa ha lagu sameeyo sidii dhammaan hadda fanaaniintii booqan jidhay deegaanka oo dumarka ahaa yani baan idii sheegayahay naag deegaanka soomaalida booqatay oo aan inta wax loogu darin cabitaanka aan filmaan laga duuban ma jirto bilxaqiiqa anintaa weydiiyey sirdoonka deegaanka naaga war kasta oo fanaanada oo tagta waxbaa loogu daraa cabitaanka way sarqaantaa wixii la doonaa lagu sameeyaa waana laga duubaa hadhow markay caadi noqoto waxaa lahaa haddaad soo cayday dowlad deegaanka tanaa faafinayna ogow weli ma aragteen fanaan inta deegaanka tegay maaragtay mawqifkiisa wax ka bedelay oo dumara may ma dhici karno xitaa waxaan joogay kuwo show ay lahaayeen daraadood loo boojiyey maxaa deegaanka u tagta hadday marka aan fara laga hayn dee raaligelin ba bixi lahaayeen marka xitaa waxaa jiray nin wasiir ahaayo inta la xiro ilaa hadda xiran lagu khasbay inuu yihahdo waxaan u galmoon jiray dumarka fanaaniinta iyo dumarka maaragtay wasiirada kale iyo ilaa hadda wuu xiran yahay marka salaadiinta yani ayaga iyo dirkooda oo ma ahayn kuwa qaata waxyaala noocaasa laakiinse waxbaa jire hala baaro salaadiinta jaanis hala siiyo waa dulman yihiin laftooda maaragtay abuyus garaysane oo fictame yaan lagu degdegin hala baaro u malayn mayo garaad kulmiya inuu ceebtaa qaadan lahaa ee waxbaa jira ya waxbaa jira waxbaa khaldan dad aragtid nin kaste dad aragtid nin daawanayo walaasoo la caayo haddaad aragtid nin suldaan u durbaantumaya dumarkoodii oo la caayo faraa laga hayaa marka bal kuwa hadda joogowna isjira ilay ninkii u galow ama xirtiisa noqdow waxaad ogaataa in filmaan xun lagaa duubayo ama khasab ha lagaaga duubo ama waxa lagugu daro cabitaanka ama haddaad doodid adigu laftigaaga waxaad noqotaa daalim weyn oo adoo maaragtay sina iyo qashin ku dhex jira kaamarada lagugu xiro qolka waxaad ogaataa in kalibiya lagaa qabanayo laguguna gumaysan doono hooyadaana la caayi doono aabbahaana la caayi doono walaalkaana la caayi doono walaashana la caayi doono welibana adiga lagu dhihi doono soocay hala isjiro waa mahadsantihiin waa idin salaamayaa khayr baa idin rajaynayaa guul iyo gobonimo waa loo dhintaa guusha dhiig baa loo daadiyaa tigree oo 2 milyan iyo xoogahay waxay dalka Ethiopia ku maamulaan dee dhacaankooda hore oo ku xukumaa sidaasana laga rabaa annagana dhammaantayo laakiin yaana dagaal ku degdegan iyo xabad anigu qoriga ma aaminsan waxna aaminsanay qaliga fulay baana xagga qoriga hadii la yiraahdo laakiin qoriga waxaan geesi baan ku aamin qalinka geesi baan ku waan aaminsanay qalinka in lagu dagaalamo sababtoo ah qori ama xabad xal ma keento nin yani sidii hadda ka horba dhacday yani waxa la isku horkeenayaa dadka shacabka ahaa
ama daalim ha noqdo ama dulmidiid ha noqdo waxa iska hor imaanaya waa dad wada dhashay marka xabad ma aaminsanay laakiin qoriga aan qalinka aanu ku adeegano qowlka aanu ku adeegano social media aanu ku adeegano waranka warka ka dheereeya maamada cusubna hadda la barto waranka warka ka dheereeya maamada cusub waranka warka ka dheereeya إلينا إن يرى ما أتكيسان كارو وفري ما نكا يعني ويل بيجسو عايا أمريكا هو يدي وحرية ضمرك كعايا باورن سوي كنا ولا يسوون سوي كنا وفري ويل ما نما حاليا نما ويرسو ورن مرسو نكا عايدا ويل يرى أمريكا تشوجا ولا شيء كعايا هو يدي نكسو حرية dumarkii birmigeeda ka dhamaan waayay markaas rag iska dhicin kara war ka baqanina wallahi waxba iska qaadi karin waxba ka qaadi karin ma fulay weey wariga ma aragna calool weyn oo buuran oo dheer geesiya saa u dalbaqsan yahay ka dhaba waa fulay xaar weyna wallo sahaad ka hubsan wa burfule yani chaanisay awalba dhagax buur buu korontada ka xiri jiray buuraha fudud maxkamadii dhagax buurna kala dhagax buur baa noo sheegi doonay waagi asaga iyo wadaadiisu is dacweeyeen ayagana insha Allah dhagax buur noo sheegi doonay kiiska isku dacweeyeen aan waxba dhix galimayo sababta tahay mar rabo inaan maama Soomaaliyeed oo ilma dhashay oo gabadha dhashay oo hooyaday oo kala aan wax yar oo ayada maartay ku ah lid aan meeshan ka sheego haddana way iga fakatay oo yaraaliga ahaw adigu dulmigeena ilay waxba kuma lihid gabar ma adeertay walaashay sharaf laata adiga iska daayay kuwa la dhashay iyo kuwa dhalay baan wax ka sheegay ay Real Yusuf dhamaan la dirsanay laakiin daalimiinta Real Yusuf asaga la jaalka kuwa deyn meeno wabillahi tawfiiq kul baan rajeynaya khayr baan rajeynaya insha Allah waxaad kala socotaan oo kale barnaamijyadeyda channelka dulmidiid doolo iyo doolo bari oo qoran dulmidiid doolo oo double L ah iyo oo ah tan short form ka calaamada oo eeg dollarka marka doolo bari waa YouTube ku qoraysan halka ayaad ka helisan macluumaad fara badan oo kale halka ayaa waxaad ka helisan sirtii laga duubay benti iyo propagandadii universal iyo dhexmaday ESTV oo yaani mid nacasahayo qowsaar geela raac yaani geela ku raaci jiray meelahaas oo ESTV haysan jiray hadda ka hor aan saga ciyaar jirnay waa aan jigtiga joognay ya madax looga dhigayo la hadlaya wariye ka tirsan madaxa barnaamijyada universal la hadlayo wariya ka war barnaamij ka war wariya si fiican tii ma nooga hajisay wartay dadkan hadaan wax loo sheegin oo de been iyo runba la isugu darin ya ma qaadanayaan naga hagaaji meesha wariya see leeso dhawey walna weer oo masuul oo ku haya ka war intee qof ay daawatay maxaa la yiri ma la amaanay qof weer oo masuul oo TV dan oo deegaan masuulka waa dadka deegaankeena magarasa xilka waaye waa niman baadiye geel ku raac jiray waa niman kaariyaal dhagax buurkaan jiray waa mid korontada xiri jiray oo madaxweyne maartay looga dhigayo intuu anaga maartay xilka noo hayay wax nagu dul bartay oo xoolo naga samaystay oo waa dad maartay aan wax taariikh fog aan lahayn yani taariikhdoodu waxay ka bilaabataa 8 sano waxayna ku dhamaataa 8 sano imagine xitaa awooyaasho taariikh badan ma lahayn marka tii eegtid oo rag la yaqaanay oo ama golaha ka hadli jiray waqti raggu waa nin golaha nabadda ka hadlay nin golaha dagaalka ka hadla ya yani awooyaasho xitaa maray raggi golaha nabadda iyo raggi golaha dagaalka oo taariikh kuma laha wax maartay way yani ma tan maanta keentay inay isku raaceen ayagu intaasoo ilmo adeera ama tole inay saas ugu saxaan xafiisyadii dawladda ilaa hadday dad soo talin jiray yihiin ama ay maartay madax soo noqon jireen de way waxba isku fari lahaayeen way xishoon lahaayeen moogtay Soomaalidu waxay tiraahdaa haddaan nimaan talin jirin taliyo nimaan tagi jirin baa taga marka waa dhibta dhacday waa saas weey nimaan talana la weydiin jirin
tayana aan lahayn ya waran iyo weer nin midna aan ku fiicnayn baa deegaankii ka taliya fulayga adeeg dumarka soo caayay man raga oo geesiyo oo rag iska dhicinteed yaqaan oo golaha dagaalka iyo golaha nabadaba ka hadli jiray baa hooyadii soo caayay kara iyo dumar waa may sidaasaan uga baxayaa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waan salaamayaa waxaan kaloo idin sheegayaa inaanu soo wadna mar dhow barnaamijyadii hore aan ku sheegay oo ahaa dhammaan hantidooda ma guurtada ee guryaha ay ku leeyihiin qabridaha meesha la yiraahdo qabri dahar dhagax buur jigjiga diridhaba Addis Ababa akoomadooda uga furan bangiyada sida Wagagan Bank oo bank statement-gooda ayagana la soo gudbin doona haddii ilaahay in soo badan dhigi doonana dadkii tacadiyada tooska ku dhaceen oo ayagana aan qaab cod ahaan u soo gudbin doona haddii ilaahay maadaama ay dhibaateynayaan haddii wajigooda ay arkaan wabillahi tawfiiq aad baan idin salaamaya